وبركاته. عليكم السلام والسلام يا شيخ مقعيق عبد الرشيد أحمد. صلاة المغرب أي إمام نتوجيني ركعدي كواد مركون نتوجي إسلام مركان تيلا بعض إنه لما يسني والربعين اتحاد كأفضل تحياتك يا واحد عضي إنه اللوبي سمركان أسر استاجي وحنا إن ضدك أي حسوسي دي بيو صلابتي ضدك لا بقى بيو كرجة بين قيبنا ويستاجين قيبنا فريق أي كسوجين مركان salaadaasi maxay noqonaysaa xukunkeeda ma in dib loo soo wada celiyaa ma saa ay ku asxaysaa jazakallahu khayr alxamdulillah marka koowaad abdulqaadir oo sahwi halmaanku waa dhici karaa ataxiyaad laga tagayna waa ku dhici karaa ka hor iyo kadibna waa dhici karaa qofkan hadduu sahwiyey dambi ma laha marka labaad marka uu istaagay subxaanallah la yiri halka uu marayay bay ku xirantay hadduu wada istaagay inuu soo noqdo ma ahayn waxaan leeyahay hadduu ataxiyaadka uu ka tagay wada istaagay baan leeyahay inuu soo noqdo maahay waayo ataxiyaadka horena sunno wey taagnidan la galayna farad iyo waajib wey waajib haddii la galana sunno looma laabto ma saxnayn inuu laabto kadib dadkii hadday qaar fadhiga ku sugeen dadkaasi wax dhiba khalada ma samaynin iyagoo rajo ka qaba inuu soo laabto isaga markii la baraarujiyey inuu laabto ma ahayn laakiin waxaa laga yaabaa inuusan aqoon u lahayn وفرض بعض قشي سنة الله من نقض إنه سنجرنين مثلا أنا كلنا جهري وعذر دار واي صادرت نقاشات هذا كسر النقل الله يسوى قرنا سلاد يسوى يجبره يبر له لكن الدين اللي عكرت إنه سنجرنين نقاشات أو النقض وخلط لكن سلاد يشبه الميسو قال هذا فرد يكسر جيسين حد مركب النقض لا تحيات سدان للملح قال هذا استكتوا قرنا يا فرض إن على جن نقولنا إن الرعان ما inay taagnida ku sugaan ataxiyaadka markuu soo dhameystay soo noqdo faatixada iska akhristaan quraanka la iska akhrisaa markuu ruuco la rukuucaana iyadana waa sida saxan loo goliya haday qaar koodan garanayna la noqdeen waa sidii soo kala xun kala dhibaato malaha intaasi waa xad jahli iyo qalad cudur daar gali kara way haday dadka qaarkii ka shakiyaan oo markuu fadhiga ku noqday kaba goostaan salaadana isagoon qofkuba qaldamin baa duruuf qofka la soo dareystay تصلاة قصته تيسر لما يستر يسكتي كرا سيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه إنك كده بتكني صلاة دون كوير ديري واركي قصير ديري كده لنشرتي هو سمي قفكو إمام يا مأموم لماذا النية ده اسكو حرت هدو قفك مأموم كهاي قصته إمام كانوا كقصته هاي صلاة دي سنة اسكو تاوي بناتي أما السبب شرعي هتشرت أما يعني يشرين كده السبب باجرتيه ما شرتو مدن بابين بس مدن بابين وبيسامين صلاة الصحة ده سامين ميسو بالله توفيق جزاك الله خير.